daawaday dood dhex martay mas'uuliyiinta Soomaaliya waxa ku jiray Axmed Ismaaciil Samatar ilaahay cimriga iyo caafimaadka ha u barakeeyo ninka doodiisa aad baan uga helay qof aqoon leh oo dood qurux badan jeediyay buu ahaa runtii wax badan buu dadka Soomaaliya u iftiimiyo u sheegay yani waxyaabaha badan ee tacadiga ay Soomaaliland ku hayaan sida inay xoolaha Soomaaliland dekada Soomaaliland ku xaniban aan iyaga damqaynoonay dan kala hayn sida inay dadka reer Soomaaliland dadka cararaya ee aan rabin Soomaali inay daamba kala godaanba wada joogto aanay ahayn ay yihiin dadka reer Soomaaliya halka sheekadu ka xirmilaaday ka xuntahay horta wuxuu qof aad aqoon badan oo qurux badan iyo dood qurux badan ay ka muuqato laakiin inkastoo codkayga adeer macaan meel fog gaarahayn anigu waxaan ku oran lahaa wadankaaga Soomaaliland ba adeer ku baahan qof aqoon qurux badan ka muuqata tahay qof geesinimo ka muuqata tahay qof cod kara tahay oo hadalkiisu meel gaarayo maadaama adeer xaqiiqdii ogaatay meesha ka jirtay waxaan ku oran lahaa dadkaaga iyo dalkaaga la dareen noqo Soomaaliland daba tahay ilaahayna waxaan kaaga barayaa cimri dheer iyo caafimaad iyo caqliga uu siiyay inuu ilaahay ku sii barakeeyo qof absolutely aqoon fara badan ku duugantay weeye doodiisa qofka dhageysta anigu aad baan u wataa madaxda Soomaaliland waxaan oran lahaa warniyo ninkaas hala soo jiito wadankiisa hooyo wax badan buu ka qaban karaa runtii xaqiiqadu og yahay ninka hala soo dhaweeyo halagu dadaalo sidii uu Soomaaliland uga mid noqon lahaa absolutely waa qof aqoon inaba caadi ahayn ka muuqato waan ka helay doodiisa wallahi mar labaad baan ku leeyahay adeer cimriga iyo caafimaadkaba Allah ku barakeeyo